بسم الله الرحمن الرحيم أصحابتي هبين وناكسن ملك استوى الدنيا ka joogtaan ku soo dhawaada wararka ugu dambeeyay ciyaaraha hadii taameer kugu horeysa soo boqoto saaxib channelkeena fadlan subscribe nasar ku maasantahay saaxiibada janqaadkaaga maanta waxaan falaqeynaa saxaabay laacibka lagu magacaabo Harry Kane oo gaaray iskoorkii jabiyay iskoorkii laacibka lagu magacaabi jiray laacibkii halyeegii hore ee naadiga Manchester City ee Aguero laacibkan Aguero wuxuu ahaa Aguero in khatar u ahaa Aguero waxa uu ahaa ninka ugu goolasho badan ninka halyeey kaliya ay haystaan naadiga Manchester City uu hogaamiyo Pep Guardiola naadiga inta qof kale oo halyeey ah ma lahan Aguero sanada ka hor baxay ayaa u ah halyeey laacibkan Harry Kane ayaa waxa uu kulan ku warfisado hal gool leeyo waxa uu dhaafi doonaa ama uu jibin doonaa halyeegii hore ee Manchester City goolinta uu ka sameeyay Premier League ee super lagu magacaabo superkii hore ee naadiga Manchester City ee Aguero ayaa waxa uu reerka Premier League ka dhashay 180 gool waxaana kulanka toddobaadka dambe ay ula fasla dhaliyaan Tottenham haduu super Harry Kane hal gool waxa uu jibin doonaa halyeeyga taariikhiga ah ee Aguero ee iskoorkii u yaalay reerka Premier League laacibkan lagu magacaabo Harry Kane ayaa waxa uu yahay khabiir goolaliye laakiin goolashiisa waxa ay yihiin geed aan lahayn wax ubax ah maadaama hal koob oo ku qaadin goolasha 300 iyo baf gaaraya ee goolasha 184 ah uu ka dhashay horyaalka Premier League laacibkan Harry Kane ayaa waxa uu haystaa xirfadlayaal ka caawiyo inuu goolasha si degdeg u dhasho waxa laacibada kamid ah Son iyo Eriksen oo sanada ka hor iska tagay naadiga Tottenham laacibkan lagu magacaabo Harry Kane ayaa waxa uu yahay halyeey ka soo baxay naadiga Tottenham waxaan uu joogaa naadiga Tottenham sano markii naadiga Arsenal ciyaalnimadiisii ay ka ceeriyeen xerada tababarka asagoo sida jir ah markaas oo ay soo gacan qabteen naadiga Tottenham saasna uu Tottenham ugu haya abaal badan uu sanadka hore la soo dhaafay u saxiixay heshiis 5 sano ah laacibkan ayaa waxa uu ka walwal qabaa in uu ku dhameysto xirfadiisa ciyaaraha wax koob la'aan maadaama hadda uu yahay 29 jir aan haystay 350 gool koob la'aan waxaan kaloo saaxiib eegi doonaa laacibka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo waxa uu nahay in warar ka jiro naadiga Manchester United maadaama aysan naadiga Manchester United aysan sanadkan sideeleen Champions League naadiga lagu magacaabo Manchester United maadaama lama joojiye uusan ka maarmin Champions League ayaa waxa uu khilaaf soo kala dhaxgalay tabaraha cusub ee naadiga Manchester United iyo laacibka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo oo raba inuu iska baxo naadigan uu halyeey ka yahay ee Manchester United laacibkan lagu magacaabo Cristiano Ronaldo ayaa waxa uu daneynayaa inuu ku biiro naadiga Champions League maadaama sanadkan aysan dheelayn naadiga Manchester United waxaana hadda heshiis u soo bandhigtay naadiga ka dhisan dalka Jarmalka ee Borussia Dortmund waxay ka mid tahay naadiyaasha ugu weyn qaaradda Yurub waxayna u gacan hatisay laacibka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo maadaama ay diideen naadiyaal gaar ah tobaneeye laacibkan hadda laacibkii Cristiano Ronaldo ah waxa diidaya naadiyaal ka badan 10 oo waayii hore markii uu jiray 30 markii uu ahaa dhalinyarada ku haman jiray inuu mar u dheelo laacibka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo oo 37 jir ah laacibkan ayaa waxa uu waayay wax garab ah waxa uu ka waayay garab naadigii uu halyeey ka soo noqday ee Real Madrid oo uu soo dhaliyay gool ka badan 451 gool kaas oo uu yahay laacibka ugu gool badan abid naadiga lagu magacaabo Real Madrid ee boqortooyaha cadcadka lagu magacaabo laacibkan lagu magacaabo Cristiano Ronaldo ayaa markan waxa loo filayaa inuu u jeesto dalka Jarmalka khaasatan naadiga Borussia Dortmund waxaan kaloo saaxiib wararka aan ku eegi doonaa oo aan ku haynaan laacibka lagu magacaabo Aubameyang iyo wakiilkiisa ayaa maanta waxay la kulmeen naadiga Chelsea xubno ka socda laacibkan lagu magacaabo Aubameyang ayaa waxa la filayaa inuu dib ugu soo laabto horyaalka Premier League maadaama laacibka lagu magacaabo Robert Lewandowski uu yimid naadiga Barcelona uu sanadkan laga yaabo inuusan boos ka helin maadaama nin ka weyn oo khabiir sportista oo laacib ah oo ka ahliisan uu ku soo biiray naadiga Barcelona waxa la filayaa laacibkan lagu magacaabo Aubameyang inuu dib ugu soo laaban doono London ee galbeedka London
maadaama uusan haysan boos joogto ah oo uusan filayn inuu sanadkan kasoo muuqan doono safafka hore ee naadiga Barcelona. لاعبkan lagu magacaabo Aubameyang ayaa wakiilkiisa maanta waxa uu la kulmay naadiga Chelsea iyo xubno ka socda waxaana isku afgartay in لاعبkan uu soo wareego naadiga Chelsea. لاعبkan Aubameyang ayaa waxa aad iyo aad u doonaya naadiga lagu magacaabo Manchester United maadaama la filayo inuu iska baxo لاعبka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo ay rabaan inay ka dhigtaan name buuxa maadaama لاعبka lagu magacaabo Antonio Martial uu ka dhaawacan yahay. waxa uu sheegay لاعبka lagu magacaabo Aubameyang inuusan gabi ahaanba ku biiri doonin naadiga lagu magacaabo Manchester United maadaama khilaafan uu ka jiro Champions League laga filayo inaysan Champions dhasho. waxaan kaloo saaxiib aan ku eegi doonaa لاعبka lagu magacaabo Casemiro ayaa waxa dalab waaligi u soo bandhigay naadiga Manchester United maadaama لاعبkan lagu magacaabo Casemiro uu ka tirsanaa naadiga Real Madrid uusan u celqabin koob uusan u celqabin ciyaar ayaa waxay rabaan naadiga Manchester United lagu magacaabo inay la soo wareegaan لاعبkan lagu magacaabo Casemiro burburiye aad iyo aad u tagiisu u fiican tahay maadaama uu joogo naadi dhisan dhan walba ka dhisan. naadigan lagu magacaabo Real Madrid ayaa gab maxamed iska diiday inay gadaan لاعبkan lagu magacaabo Casemiro oo burburiyada kaliya ay ka haystaan ifka ayna ka ilaashanayaan. waxaan kaloo aan saaxiib aan ku eegi doonaa Pulisic oo ka tirsan naadiga Chelsea ayaa waxa u gacan qaatinaysa naadiga lagu magacaabo Manchester United aanan waxba ku ogeyn xeer dhulka aan ku ogeyn aan ciyaaryahan ka warqabin oo ciyaaryahanada isku dhaceen oo dhibaato badan ay soo wajahday naadiga Manchester United ayaa waxa ay raadinayaan Berchid oo rabaan inay ka dhigaan garam maadaama laacib badan oo ay fashilmeen لاعبka lagu magacaabo Sancho iyo لاعبka lagu magacaabo Rashford aysan gabi ahaanba aysan sanadkan ku tashaneen inay wax badan ka qabtaan naadiga Manchester United. waxaan kaloo saaxiib aan ku eegi doonaa wararkeenan لاعبka lagu magacaabo Mbappe iyo Neymar khilaafkooda cirkaas isii gala maadaama labadan aan ognahay in kulankii la soo dhaafay ay leeshay naadiga Paris Saint-Germain ee bilowga horyaalka Faransiiska ay isku qabsadeen rugoore markaas uu yimid لاعبka hore ee Real Madrid Sergio Ramos ayaa kala dhex galay oo kula sheegay in khilaafkan u ficneen naadiga. waxa intaas lagu sii darayaa in waxa intaas lagu sii darayaa in qolka labiska naadiga lagu magacaabo